kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka kooban ee RTV waxaana ay ficil burkud dhidhi qodobada ugu waaweyn waxay kala yihiin madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor ayaa sheegay inay dhowr jeer dib u dhacday doorashada Soomaaliya mar kalena laga cabsi qabo inay dib u dhacdo dawladda Mareykanka ayaa ballaarisay tirada dadka Soomaalida ah ee lagu soo rogay xayiraadda fiisaha kuwaas oo lagu eedeynayo weeqitaanka hanaanka dimuqraadiyadeed ee Soomaaliya sida uu ku dhawaaqay xoghayaha arrimaha dibadda ee Antonio Blinken madaxweynaha Somaliland oo la kulmay xildhibaano ka tirsan aqalka odayaasha ee baarlamaanka Mareykanka qodobadaas iyo qodobo ay ka mid yihiin doorashada guddiga hirgelinta doorashooyinka ee maamul goboleedka Puntland ayaa maanta oo Khamiis ah lagu wadaa inay magaalada Garowe ku diiwaan geliyaan 6 kursi ee ugu dambeysay doorashada golaha shacabka qodobadan dibadda idinka haynana waxaa ka mid ah duulaankii uu Ruushku ku qaaday dalka Ukraine waxa uu dhamaaday 3 toddobaad kadib waxaana ciidamada Ruushku ay go'doomiyeen dhammaan magaalooyinkii ugu muhiimsanaa ee dalka Ukraine ay ka mid tahay caasimadda dalkaas ee Kiev qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan warkeena kooban haatan RTV